jini ma qabo haddii ninkaaga oo arrintaas uusan samayn karin anaga samaynayn waxaa ku sugannahay mid ka mid ah taxanayaasha shirkadda masrax soo saartay mar kale shirkadda masrax waxay nooga yaabsatay taxano la yaab leh markani wuxuu ka hadlayaa taxane aan hore loo arkin oo dhibaatooyin jira soo gudbinaya maxaa cilaajyada ka dhaca dadka maxay ku sameeyaan ma quraan saar mise wax kale biyaha la isku rusheeyay maxay yihiin waxyaabahaas iyo waxyaabo kale ayaa caawa halkan lagu daawan doonaa waana xalqadii koowaad ee taxanaha cilaaj dhibaatooyinka dadka dhimirka ka xanuunsan waxay mararka qaar ka soo bilaabantay goobo ka fog magaalada oo aan laga heli karin dhakhtar la tacaala laga yaabaa dadka qaar inay si kale u isticmaalaan ay ka faa'iidaystaan ayagoo dhahaya jini aan ugu dhacay maybe inay ka faa'iidaystaan laakiin dadka qaarna maxaa laga yaabaa inay run ka tahay laakiin aanin ma aaminsan cilaaj wax weyn ayuu soo wadaa dadkan waa laga dareemayaa waxaa ila taagan aktar ka mid ah aktarada ka soo muuqday shabakadda oo caawna qayb ka ah taxanahan cusub ee cilaaj axmed soo dhow waa maasantahay bukhaari warbixinta bukhaarina waa ku dhowahay intay iidaan caaw waxaa naga warantaa jawiga guud ee goobta uu ka dhacaya taxanaha cilaaj runtii dadku aad bay u qurux badan yihiin taxana la yaab leh socdaan fila runtii masrax production aad u mahadsan yihiin waxaa moodaa in sanadba sanad ka dambeeya ay soo saarayaan mataqaanaa filimaan ama taxanayaal wadanka wax ka dhaca ka turjumayo dabcan cilaaj wuxuu ka mid yahay taxanayaasha maaragtay ka turjumaya wadanka waxa ka jiro mar kastana wax dhaca waayo dadka ayaana maaragtay awareness ama inay ka digtoonaadaan fariin saas u gudbinaa kasoo qaybgalka caawa sidee ku qiimay lahayd taxanahan cilaaj oo ah runtii mawduuc muhiim ah oo in badan in laga hadlo ay bulshada u baahneed sidee bay ku qiimay lahayd kasoo qaybgalay والله maalinta ka dambaysa ka soo qaybgalayaasha marti sharafta imaanayso aad ay aad u maartay u noqonaya maartay wax cajiib ah dad badan ka soo qaybgalaya bulshada qaybadeeda kala duwan actors badan imaanayo ganacsatada imaanayso Soomaaliya waxay sii fuulaysaa wadadii mataqaana ee film sameynta si aad iyo aad waliba teamka masrax production wax soo saar aad u qurux badan ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa mataqaana wax soo saarayso wax duubaysa duubista script writingka mataqaana iyo waliba actorinta oo wax jilaya inaba caadi ma marka waxa leeyahay boqolkiiba boqol inaba caadi ma waa loohay aad u maasantahay waxaan aad ugu faraxsanahay horta inaan kamid ahaado teamkii wax ka jilay filimkan aad noo saaran caawa masraxa ee Premierkiisa aan joogno ee cilaaj anoo lagu arki doona doorkii aan hore u jiri jiray door ka duwan anoo ku jilaayo insha Allah taala magu hordhacaya dhalinyarada way wada daawan doonaan waxaan isleeyahay filimkan wuxuu ka bedeli doonaa waaqaca Soomaaliya oo dhan ayuu wuxuu ka bedeli doonaa wax fahanka ay ka haystaan mental illnesska iyo sida dadka oo tacaamulayaan waxa soo wax ka bedeli doonaa aaminsanahay waxay igula sugan directorka taxanaha cusub ee caawa halkan lagu daawan doono cilaaj madana Cabdulqaadir Sheekh Mr. Ato wadawhay Bukhari aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan ku waanbalay adiga talentigaaga iyo creativity-gaaga iyo storytelling-kaaga aad u mahadsan tahay waxaan naga warantaa balse dareenkaaga waa sida caawa halkan maadaama lagu soo bandhigayo taxanaha cilaaj oo kamid ah taxanayaasha Soomaaliya ee taabanaya arrinta muhiimka ah oo aan la taaban wallahi runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta hawadan furan aan cilaaj Premierkiisa caawan ka qayb galayno kuna dhiganayno magaaladeena Muqdisho waxa intaas noo dheer farxadda inaan hadda ka soo laabanay Zanzibar International Film Festival oo aan ku soo guuleysanay awardkii Germany's Award for Film Excellence anakoo 2 sano jirno ayaa waxa dunida ay la yaabtay heerka iyo tayada film sameynta aan ka gaarnay muxuu ugu duwan yahay marka laga daban shabakadda waxa ugu duwan maxay tahay horta taxanahan waxaan badanaa marka wax sameynaan u sameynaa laba arrin midna waa entertainment midna waa wacyigelin ama awareness raising marka waxa aan rabnaa inaan xoogaa ifinno cilaajka iyo waxyaabaha ka dhaca ma ciqaabba ma xadgudubba ama cudurrada dhimirka sidee loo daaweeyaa waxaan lagu daaweynaya ma saxba dadkeenna maxay ka aaminsan yihiin waalida iyo cudurrada dhimirka ku dhaca jidkan ay aadeen oo cilaajka ana ma yahay kii habboonaa mise waxaa jira siyaabo kale oo ka gedisan oo loo daaweyn karo marka taxanaha waa limited series waa 8 episode
laakiin wuxuu aad u ifinayaa ciqaabta iyo xadgudubka lagu sameeyo goobahaas cilaajka la yiraahdo hadday noqoto